madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay shirkii magaalada Ankara ee dhexmaray dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Soomaaliya iyo kulankii uu la yeeshay madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweynaha dalka Turkiga ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga madaxweyne Axmed Maxamed Sinaayo oo wareysi khaas ah siiyay telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Ankara ayaa waxa uu ku sheegay inay Soomaaliland u soo hoytay guul wax ku oolaa go'aamadaasi isagoo ka hadlaya madaxweyne Axmed Sinaayo waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim go'aamada waxaan arkaynay inay go'aamaan aad iyo aad ugu faraxnay ay ahaayeen runtii sidaad u sheegteen go'aamo lagu dirsaday ay ahaayeen dawladda Turkey waxay noo soo dhaweysay si weyn bay noo soo dhaweysay labada dhinacba si waxan bay noo wadarsay waxay noo muujisay inay tahay dawlad ay dhab ka tahay aadna u daneynaya in muxuu ahay manطقada nabadgelyadeeda iyo warshaqeynteeda iyo inay aad iyo aad u daneynayso ayaa nooga muuqatay muxuu ahay inaynu laba wadan oo baahan iskaashadan ahayna way ka muuqatay waana ka soo baxday marka iyagana heer kasta waan ka aragnay way nagu soo dhaweeyeen ilaa madaxweyne ilaa prime minister ilaa foreign minister ilaa heer walba way nagu soo dhaweeyeen labada dhinac way sukaya keeneen si wanaagsan waan u wada hadalay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dawladda Turkey sida ay yeeshay iyo hawsha ay ka waday iyo roolka ay ka ciyaarayso iyo manطقadana amahanba roolka ka ciyaarto labada dhinac kasta ka noqotay ama xagga nabadgelyada iyo sukaanka wax wada qabsiga ay ku dadaalaan sida ku sameeyaan way ognahay xataa shirkadaha waaweyn ee leeyihiin badalkeena muxuu ahay macad ka baaraya marka Turkey waa dal weyn taariikh badan ay ka dhaxayso dalka reer Soomaaliland ay ka dhaxayso oo taariikhda berberiya ku lahayd seerciyo dunida weyn ogeyn marka waxa weeye waa dal aanu dhiirigelinayno in xiriirkeen uu si wanaagsanaado oo si kobco waxtar weyn iyo qiimo badan u yeelan kara dalkeena dadkeena waati madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo in badan baad ku sitay siyaasadda geeska Afrika maadaama khabiirnimada siyaasadda aqoon badan leedahay qodobadan maxaad oran kartaa waxyaabo qaar bay Soomaaliland faa'iideeyeen toddoba qodob ka eegtay qodobada faa'iido weyn bay u yihiin Soomaaliland faa'iido weyn bay u yihiin waxa muujinayaan horta Soomaaliland ay u muujinaysaa in Soomaaliland dal gooni u taagan ay tahay oo sideeda ixtiraam qadar u leeyahay in qayb Soomaaliya kamid ah ayaan ahayn ay horta marka hore muujinaysaa isukaanka iyo wax wada qabsiga iyo nabadgelyada ka warshaqeynta halkeeda laakiin way muujinaysaa aad iyo aad bay u muujinaysaa inay halka sidii naloo tusayba